بسم الله الرحمن الرحيم واستاذكي جننكيسي جن سوم اوفيشال anigu ayaantan waa hadlaa waxaan ku hadlaa wax yani wax suuragal ah ayaan ku hadlaa oo wixii hore u badan wax hadda dambe oo dhan u sheegay loo sheegay waa daalnay waxaan sheegi rabaa marka insha Allah hadii Ilaahay yiraahdo dadka hadaan qab lahayn qab qofka ama dadka ama umada hadaan qab lahayn cid qadarinaysa male qofka markuu qab leeyahay oo asaga qab isla leeyahay ayaa la qadariyaa markaas la warinka daya markaas uu laaya laka hadaan qab lahayn oo iska socoto ariino waa baraar aad noqoto ya insha Allah halkaasaan rabaa inaan ka buskiciyo maanta waan Soomaaliya dan leeyahay iyo Afrikaan oo dhan marka isku soo qabto hoos markuu dhacan waa anaga insha Allah marka laakiin waxa jeelaysan waxaad yeeli jirteenoo wixii la saaray iyo wixii lagu faray wixii anigu wax intara oo dhan idinka oolba waxaan sadaqo waa la yiri kullu sadaqo Allah ka dhigo ee saara waa yani waa ogahay kalsooni idinku qabaa insha Allah marka halkaasaan ka socdoon hadii Ilaahay yiraahdo marka qofka hadaan qablayn ama dadka hadaan qablayn ama umada hadaan qablayn ya cid ku qadarinaysa aad ma jirto marka soo qaad Afrika hadda ka soo qaad markii anaga waa noo soo dhici doonaa Afrika ka soo qaad waxa hadda cudurro oo yani anaga yani lagu baawsanayo oo la leeyahay cudurkaas idinka curbada idin soo dirayna wala leeyahay meeqa cudur oo anaga dadkeeni hore iyo Afrika ani kulli marka Afrika la isku yahay waa la kala baxay Soomaalideena magacyo badan ayaan bixinay daawadeedana waa haysan jirnay daawadeedana waa haysan jirnay ya kasoo qaad hergab markii la yiraahdo daawadiis waa islaanaga adduunka laakiin hergabku wuxuu ka yahay qolooyinkan kale wax culays ah anaga laakiin hergabka 5 daqiiqo insha Allah ilaahay noo yani noo fududeynayo anagu isku kalsoon in waxayna baxay iyo waxa sameysana wax yar waxa la leeyahay maraq ari la siiyo qofka hergabka tabciin maraq la siiyo ya maraq la siinaya filfil loogu dara ee qatar meesho dhan wixii kuleel dhan loogu dara sanki iyagu keenaya talab fوق waa caafimaad qoraal yani aqoon oo yani qoraal aan ku lagu qoro adduunka oo loogu gudbiyo anaga xageena oo kama jirin waxaan aaminsanahay waana la dhaxlay dad waxaas intay heleen yay qaateen anaga waxaan isku daaweynay waxay isku daaweynayeen waa geeday u badan yihiin waana geed noo baxo dhulkeena ka baxo Afrika ka baxo way u badan yihiin laakiin aqliga aan ku gudbi lahayn iyo qabkii anaga inta isugu imaan Afrika danaay oo inta isugu imaano oo wax in sameysano waa yeelo wayno waan yani si kala loo isticmaalay aniga adiga daan isugu imaano war cudurkaas maxaan u bixinaa dileeraa adigu marka hadda ilaaha sharci gala noqonay nin kale oo xagaas qolooyinkaas kala leedahay cudurkaas iyo hoos markaas magaciibo waa loo baxsanaya asagoo socda anaga kaliya noo keenaya geedeeni yaa la isticmaalaya wixii aan naqaanay cudurkaas marka waxaan magac loo leeyahay oo awooyaashan ka soo gaarin xoolaha waxa ku dhici jiray cudur lira qande waa laga daawo jiray ya daba karuuba xoolaha qaarkood ku dhici jiray looda iyo waxaas oo kale waa laga daawo jiray waxaas oo dhan daawadaas daawo Soomaaliya ee la daaweyna dhagayna noqonayaan waxa ma jir waxaan naqaan cudur oo aan daawo lahayn yaa jiray waxa la yiraahdo kud neefka caaw ku soo bado kow hadda maxaa daawo laga gaaro waa kude daawo ma jirto waa kud xitaa dadku waa soo gaaro kud anaga dadka kud ku dhacay ma dheeyne dadka laftooda yani daamar Allah jire qofku waqtigiisa doo dhamaan si dhimalayo way qorantahay marka xoolaheena iyo waxeena iyo anaga sidaas daawadeena ay jirtay oo cudurka daawadiisu waa haysan jireen geedaheena yaan ugu daaweyn jireen awooyaasheen dad waxa leen daawada bixiyo dad waxa leen qofkii jaba kaba dad waxa leen qofkii yani bugtada ku raagto oo ku raagto guguba ya feeraha ka gubo waxa ka gubo waxa leen afbajeerkan ayaga daawo uma heli jireen anaga daawo waa waayna
محلو بحي شمبرو يا ودكاتير تاين يعني سؤال إنه داوي جرتي إسلام مركز قفك دك الغرفان دك أفتي أول بصير دلدو هاي دلد قلوا عطوا كله دك وصوتوساي لكن قفكي يعني وحلو جار لاي oo ummadnimada soo gaar la oo dadnimada soo gaar la oo yani oo lagu wada tashado dhila nimayo annaga wixiinaan oo wanaagsan seen suuq ku geynaa oo magac ugu yeelnaa oo adduunka kale ay loo aqoonsadaan oo xataa aan soo saaran hal kaniini oo yar kaniiniga wuxuu u roon yahay halka kaniini oo yar wuxuu u roon yahay shimbirowgaan oo kale ma yaqaanaan ayaga annaga sameynayno si loo sameeyaa geedka oo ku gubay wadaadkan oo wax daaweynay oo aniga aan aaminsanayn ya geedkaasa yani si cilmi laakiin cilmigi waan baranay dhaqaatiirana dibadaha tagnaa meel walba wax soo baranay professoraan gaarnay waxaan gaarnay meel sare haddana waxba ma soo saarin qaan maxaa niyaday ka dhintay qab male wax liito waay ya wax liito asagoo wixii yaqaan wixii oo yaqaan الله شيء هذا لو طلعنا اللي سانجل قارد كذا سن لو سودي به وأفريقيا قارد كذا سن لو سودي به لينا تنفلي تكان كل ما راني مركب كل ما ران أنا إيماننا داوم كيننا يا معنى اليوتا يا لو سودي به كي أبي وحكو برتي يا لو سودي به أسوأ وحي يقان يسقفسن ياي يا إلا وابن لنا سنة dadkan haday u barteen in yani la rarto ya bartay oo qalbiga ka jabino awowgeed gumeysida soo marnay wali qalbiga lagu haayo dadka dhan gumeyso mar ayaga laftooda dadka adiga hadda aad gumeysa ka sheegays ayaga waa soo gumeysteen laakiin waxba isku falaan waxbay noqdeen wixii adiga ka heleen iyo wixii ayaga heleen isku darsadeen yay cilmi la soo baxeen yay maartay daawo iyo kaniin ku soo qoraan adiga laakiin qabka ka maqan afrikaan ay dhulka isdhigtay ya dhulka lagu talaa beeraha lagu talaa lagu leeyahay u qodo awowgan waa soo qodo jiray looma tali jirin waa qodo jiray laakiin cilmiga oo leeyahay waa intaas ku ekay laakiin adiga waxaad dhaxgashay adduunka dhaxgashay cilmiga barateen dhalinyaradiini dadkiini madaxda noqdeen waxay noqdeen wax walba waxa la rabay inay Afrika dadkay inay tastaan oo ayagana soo saaraan wax hal kaniini xataa oo umad u roon ya ma keeni karno waxaan ku mashquulsanahay oo ku dhibaataysanahay ninkii wax bartaba inta ka qabtaa siyaasadda xaggan ka galaa xaggan ka gal inta ka gali kara ka riixi kara kan maxaan dhiibo karaa maxaan yeeli karaa mashquul waxaan loo baahneen isriixid annagoo weliba Soomaalidan haddana islaam ma sheeganayno waaba nahayba yaan gafin Soomaalidu waa islaam abi isna islaam weligaan anaga nagu sheegin wax kale qofka kaliya si fidoobo oo gooni u baahan diintu wixii ka qabto waan ognahay يا فأقولها قف كي جالس بحوك لكن سومالي وقف كان وعدال قف ضايو وتصع بريان ما أركينا قالوا نيك جالس ولا استاي نيك أو نيك هذا يكون طالع هذا السلام كل شداد ما أرتوح على هذه اللواي كل ما دوني ذا والله تجي أقرأ الله الصلاة وجددوا وين ليه وحي أهد ضجه أفريقيا أما الصومالية وحسب ترى إذا كواح نقطة كلا دمبير هذا إماتو أو لسه دقيستو أو كان علمي قاله كان كلا دقيستو أو ليه رجال مرمرنا والله نكالا نوقف عنه ليه راهو وعلمي قال ليه أنا أنا وحوا قال لك أديك يقبضي السلاي ما لا نبتقي له لازم الله يوم أنا في الكرة على وقت أيانين أو البحر دمي أكور مرة ألف الكرة هو ألف وقرآن بلاو قسي لكن كان علمك وقالي ما أقولي ولما وحكلوا معنا أول هنا أي قبيل وحاس وحياواس أو حمو مال اللي تجلا واك والس كدوريجا دولة دالتي
tukala dhalati tii kala dhalati tii kala dhal meel loo socdo mal walba wali meeshii la joogaa wali meeshii la joogaa xaqii waa la garmarsan yahay hadii la ku wanaagii Soomaalida waa la garmarsan yahay waxaan isku falan marka anaga wax noqono oo qab aan yeelano ayaa Soomaaliya wax noqon doona ayaan cilmigeena iyo dhalinyarada wax loo baratana ay wax noqon doonaan oo ma garat insha Allah marka hadii Ilaahay yiraahdo waxaan sheegay waa cilmi ninkii wax kale u haysto waa asaga waxaan sheegay waa cilmi oo loo baahan yahay aniga hadda waa yeelan garkan oo cadaad dadka dhalinyarada hadda wax bartay fursad hala siiyo ayagana hal noqdaan kuwii wax tar lahayd insha Allah. Assalaamu calaykum.